arrin aad u xiiso badan ayaan hayaa oo ku saabsan Yurub. Markii ugu horeysay taariikhda xubin ka tirsan NATO ayaa ka guuraya midowga Yurub. Taasi beddelkeeda waxay ku dhawaaqday in mustaqbalkeeda uu la socon karo China iyo isbahaysiga dhaqaalaha ku dhisan ee BRICS Plus. Ha qaldamin, tani waa qayb ka mid ah burburka aanu ku aragno Yurub oo dhan, iyadoo laga digayo in xaaladda Ukraine ay sii dheeraan doonto aysan dhammaan doonin mar dhow. Run ahaantii ay maalinba maalinta ka dambaysa ay kor u sii kacaysay ilaa uu gaaray heer aanu maanta aragno ciidamo reer galbeed oo dhowaan la dagaalamaya Ruushka qaab foolka fool ah. Bal eeg waxa dhacay tan iyo markii Joe Biden uu ogolaaday Ukraine inay isticmaasho gantaalada riddada dheer ee Mareykanka oo ay ku garaacdo dhulka Ruushka. Markii ugu horeysay taariikhda aqalka Kremlinka ee Ruushka ayaa hadda ku dhawaaqay in Mareykanka uu yahay cadawga koowaad ee Ruushka. Hadda Putin wuxuu si cad u sheegay in Ruushka uu xaq u leeyahay inuu siin karo hubka riddada dheer qolo walba si ay ugu weerarto bartilmaameedyada reer galbeedka. Считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают... طبعا tan waxay timid kadib markii NATO ay ku dhawaaqday in qorsheynayso inay u dirto ciidamo Mareykanka jiidda hore ee dagaalka Ruushka. Waxayna si firfircooni u horumarinaysaa marinada dhulka si ay si dhaqsi ah ugu gudbaan ciidamada bartamaha Yurub. Tani waa qariidad faahfaahinaysa sida ay u egyihiin marinada dhulka ay ka weerari rabaan Ruushka. Wadooyinkani cusub waxay ku fidi doonaan waqooyiga Scandinavia ilaa koonfurta Turkiga oo dhan. Laakiin halkan waa halka ay arrintu xiise ka yeelanayso. Turkiga waxa uu ahaa xubin ka tirsan NATO tan iyo 1952 wuxuuna leeyahay ciidamada labaad ee ugu badan NATO. Waxay ku socotaa arrinta iyadoo aan la sheegin in Turkiga aad muhiim ugu yahay NATO, laakiin inta badan reer galbeedka ayaa lagu mashquuliyey eedaymihii 34 ee dambe ee Donald Trump. Isbuucii hore kulan aad u istiraatiiji ayaa ka dhacay magaalada Bakiin. wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan ayaa dhigiisa China waangi kula kulmay magaalada Bakiin ayagoo ka wada hadlay kobaca dhaqaalaha mustaqbalka ee Turkiga. Turkiga ayaa muddo 20 sano ah sugayay xubinimada midowga Yurub, waxaana la xaqiijiyay in aysan weligoodna heli doonin. Sababta ugu weyn ee markii hore loogu ogolaaday inay ku biiraan NATO ayaa ahayd locationka ay ku yaalaan oo ah goobta istiraatiijiga ee badda madow. fikradda ogolaanshaha dawlad buuxda oo Muslim ah oo ka mid ah midowga Yurub ayaa la xaqiijiyay in aad ugu adag tahay inta badan Yurubta si ay u aqbalaan 10 sano kadib daaweyn iyo isqancin balanka baxyo badan ay midowga Yurub sameeyeen. Turkiga ayaa hadda diyaar u ah inuu u dhaqaaqo jiha cusub oo uu mustaqbalkiisa u wareejiyo China iyo wadamada kale ee isbahaysiga dhaqaalaha BRICS Plus si ay u helaan rajo dhaqaale oo aad u wanaagsan. xaqiiqdii kuwani waxay ahaayeen erayada saxda ah ee wasiirka arrimaha dibadda Turkiga oo sheegay isbahaysiga BRICS Plus iyo China ay siin karaan Turkiga rajo ka wanaagsan tii midowga Yurub. Aniga waxaan ku ammaanayaa Turkiga inuu doonayo inuu bedelo xulufada Yurub. dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxay ku jireen hoos u dhac aad u weyn, waxayna soo food saartay mustaqbal adag iyagoo isku dayay inay boos ka helaan adduunka cusub ee New Multipolar World Order.